odayaal iyo waxgarad ka soo jeeda galbeedka magaalada Kismaayo ayaa ku guuleystay xalinta colaad u dhaxaysa laba beelood ee wadadega galbeedka magaaladaasi. Suldaan Maxamed Axmed Warsame Gardheere oo ka mid ah waxgaradka gacan ka geystay adaminta colaadda ka taagan galbeedka magaalada Kismaayo ayaa raadiyaha Rugsan u sheegay in xaaladdu haatan ay wanaagsan tahay isla markaasna aysan jirin wax colaad ah oo xilligan halkaasi ka taagan. Suldaan Maxamed Axmed Warsame Gardheere ayaa u mahad celiyay culimaa u diin door wanaagsan ka qaatay daminta colaadaasi isaga oo sheegay in dhawaan la soo saari doono baaq ku saabsan waxa ay ku heshiiyeen labada beelood ee maleeshiyaadkooda dirirta ay ku dhex martay deegaanada ku yaala galbeedka magaalada Kismaayo. magacay waa Suldaan Maxamed Axmed Warsame Gardheere. haye bal shirkan jaraa'id ee aad qabanaysaan adiga iyo caaqilka bal hore u socda. shirkan wuxuu ku saabsan yahay anagu beelaha ehelka ah oo isdagaalay baan nabad ugu baaqaynaa ma garan. waxaan rajaynaynaa nimanka culimada iyo cuqaasha ku jirta oo ku galay maxaan ku idhaha ilaahay dartiis in ilaahay ajarna ka siiyo una fududeeyo arrintaas insha allah. arrintaanu ilaa hadda 2 sano ku dhawaad waa soo jiitamaysay. hadda wax kastoo dhamaadana ilaahay xaggiisa ka dhamaadaan waana lagu dhex jiray intaasoo hadda waxa weeye meesha ugu dambeysay maraysaa. marka hadda waxaa laisla qaatay in la nabdo oo arrintaas maxaan ku idhahdaa wanaag lagu dabaalo oo dadka islaamka ah oo isku maranaya aan lagu fiirsan waxa hadda ay ku jiraan. sidaasaa lagu ballamay. waxaa kaloo jirta adeer haddii xataa qof islaama qof hadda u hamuun qaba dhiiggiisa inuu daadsana waxaan leenahay ha ka joogaan leenahay insha allahu labada dhinacba. marka waana soo dhaweynaynaa culimada iyo cuqaasha hawsha ay wadaan. waa tageen waana tagaan maalin walba haddana waa jiraan. haddana waxaa loo ballansan yahay labadii beelood inay fadhiistaan wixii dhexdooda adigu ku jiro oo dhibana la dhameeyo. adigu wiigaanba waa socdeen iyo wiigii ku xigayba. marka culimadu marnaba kamada ay joogsan iyo nimanka inta caqliga saaxiibka ah intaba kama joogsan intaa waa wadeen hawsha ma garta. adigu adeer wixii sabti loo gaara laga yaabaa in la fadhiisto. haddii ay ugu sii dambaysana isniin iyo wixii loo gaaro arrintaa waa la isku adkartay in la dhameeyo meeshii ilaahay ugu talagalay in la gaarsiiyo. culimada iyo odayaasha orod kuma yara. wixii ilaahay dilayana anagu ma celin karno insha allahu. laakiin hadda tii u dambaysaa lagu jiraa inaan wax damba dhiman maxaan ku idhahdaa oo dagaalkaa ku dhiman oo inta labada reerood haddana dib damba dagaal uga qarxo. marka ilahay idinka waxaan rajaynaya arrintaas inay ku dhamaato wanaag. maamulka Jubbaland gacan intee leg ay ku leeyihiin daminta colaadda? wallahi way tageen baa la yidhi meelaha maxaan ku idhahdaa laakiin kolley ma filaayo sidii laga rabay inay u galeen. waayo ayagaa wax ciidanoo buuxa haysta ummadana kala dhex geli kara. laakiin hadda waxa orodka ugu badan ku jira waa culimada iyo inta caqliga saaxiibka u ah iyo waxgaradka weeye. wayna ku guulaysteen in hadda la damiyo arrintaas. horena mar labaad iyo mar saddexaadna waa ugu baaqnay inay wax ka qabato arrintaas. intii ay ka gaari kartana kolley hadda baaqyana way jirtay warna way ka soo saaraysaa kolley saacadaha soo socda. hadalkan ka soo baxay Suldaan Maxamed Axmed Warsame Gardheere ayaa ku soo aadaya xilli isaga iyo xubno kaloo ka tirsan waxgaradka dega galbeedka magaalada Kismaayo ay muddooyinkii dambe ay wadeen dadaalo ku aadan sidii loo kala qaadi lahaa maleeshiyaadka dagaalka uu ku dhex maray galbeedka magaaladaasi.